roobabka guga ee raxmaadka eebe ayaa ka curtay guud ahaan gobolka Togdheer gaar ahaan degmadiisa Burco taasoo ay ku dirsadeen bulshooyinka ku dhaqan magaaladaasi. Haddaba magaaladani Burco ayaa waxay noqotay marka uu roobka helo mid u eg dooxa magaaladaasi Burco halka meelaha qaarna ay noqoto meel biyo fadhiisina taasoo sababi karta xaalad caafimaad darro. Dadweynaha reer Burco oo aanu ambrifayrka la dhex qaadnay ayaa waxay noo sheegeen in dawladda hoose magaaladaasi Burco ay qabtay shaqadeedii isla markaana ay ku jirto hanti urursi maadaama uu xilkoodii dhamaaday. halkan imika dhex taaganahay waa suuqii magaalada waa aragtaan biyo yihiin siday u fadhiyaan xildhibaanada waxaan leeyahay xildhibaan ama golayaal haddii ay weydeen wadada waxa ugu hagaajisaan dadweynaha miyaa kala qashaafteen cagafiyadan iska dhex yaala dawladda hoose inta ka haysan mooska kaga sameeysan magaalada sidee taana dadweynaha hadaa u sheegtay in shidaalkeedan u heli karaynin dadweynaha ku shubtaan oo wax dhici karta sidii tuuga kale dooxa Burco meel qajira Burco imka iyada waa wada dooxaba markii hore meesha timaadeen nin walba manus baloor kiraaba ku jirtay oo dabeeta laba baloor baa doonaysa inaad meesha ka sii dhisato iyo saddex baloor kala adkayso dabeetana meeshii ay faa'iido timaado qorshaysan maadaama roobkii gugu daay dadkii waxay ka camanayaan biyihii iyo roobkii oo daadadkii oo guryihii iyo galaya golaha deegaankuna muddo waxay joogeen imanka 5 sanad iyo dheeraad ah barnaamij u qorshaysan oo ay ku hormari karaan gobolkan Togdheer ma jiro sababtoo ah maanta waxa weeye nadaafad darro waxa laga baqayaa inay dhacaan shubano iyo waxyaabo keeni kara caafimaad darro roobab laxaad la waqtigii nimcada Ilaahay shubi jiray eebe ayaanu galay wax halaalo wax uga qorshaysan ma jirto dawladda hoose ka dawladda hoosaan ama maayirka magaalada Burco aan iraahdee wax uga qorshaysan ama nadaafadii ama hagaajid iyo meesha dadku iyaga ay doortay inay wax u qabataan naftiina wax u qabstaan idin ma dooran musabbixina waxaan u sheegay madaxweynaha qaranka Muuse oo dadkan in lacag urursan lagu maanan dooran inay wax noo qabtaan nafteeda ayaan u dooranay haddii qiimo waayeen waxa waajiba oo munaasiba in xilkii laga qaado oo dad wanaagsan wax qabanaya dadkii loo doorto dawladda hoose Burco ayaan dhag jalaq u siinin cabashooyinka ka soo yeedhay bulshooyinka ay mas'uulka ka yihiin. Maxamed Abdullahi Maxamed Wardi Somali Cable Burco.